بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم soomaalida indhageysanaysa iyo taageerkiisa kulligeed waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meelaad joogtaanba soomaaliya khayr baan ilaahay idinka baryaya sharna ilaahay haynaga xidho intaa kadib waxaan ka hadlayaa jigjiga anigoo jigjiga jooga oo dhakhtar u yimi waxaa shirka kaga jiraa laataaroo shirka ka socda ummad weynta isugu timi waan halkaa kaga jira waxaan uga horeysiinayaa waxaan hambaliyeynayaa una mahadnaqayaa marka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa marka labaad waxaan hambaliyeynayaa ummadda isu soo xilqaatay ee isugu timi ugu horeeyo waftiga ka yimid dowladda federaalka iyo soomaalida gees walba isaga timi ee inay hirgeliso oo dhisto oo ka qayb qaadatay isugu timi intaasoo dhan waa hambaliyeynayaa shirku inuu guulaysto oo dowlad guuleed laga dhisana ilaahayna waa ka baryaynaa dadkana waa ku guubaabiinaynaa taa intaasaan ku dhaafaya marka hore dadkaas maanta ku jiraya gobolka sool ee soomaalida isugu timi ee maamulka dhisanaya waxoogaa taariikha yaan horta sheegaya dowladnimada soomaaliyeed iyo diinta soomaaliyeedba diintuna waxay ku badbaaday oo loo gaalaysin waaye oo boqolkiiba boqol muslim ay ku tahay soomaaliya dagaalkii daraawisheed baa soomaaliya loo soo geli waayo dowladnimadana helgankii daraawisheed yaa lagu ogolaaday oo ilaahay ma amree dowladihii xujooyinka dhigay ay ku ogolaadeen guddidii la odhan jiray SYL 13 ahayd markay dowladnimada dootay ee United Nationska ama urada tagtay ee la yidhi dowladnimaanu doonaynaa ee cabdilaahi ciise maxamuud ahaa ninka wareegaya u doonaya dowladnimada waxaa la yidhahdaan halgama lahayn miyaa doonaysaa dowladnimo xamar buu la soo hadlay wuxuu yidhi saasaa layleeyahay waxaa la yidhi daraawiish sheego daraawiish buu sheegtay hadal dambe laguma celin socabayn baa lagu soo dhaweeyey dowladnimaduna saasay tariiq ku lahayd maantana ta taagan haddii burbur dhacay oo la jajabay waxaanu maantana u taagannahay soomaali inaanu isu celino oo ay taariikhdii saddexaad u noqoto dadka dhulkaa degan inayan ogolaan in dalka la kala gooyo waayo taariikh bay ku leeyihiin weyn oo u dagaalatay oo daraawiishtaa sheegaya intii dowladuhu socdeen wax qaribayeenna soomaali isu daayeelaayo maantana waxay soo afjarayaan oo soo afjartay inaan soomaali la kala goyn taariikhda saddexaadda waxaan doonayaa soomaaliyay beeshaa inaad u qortaan taariikhda oo bilad bay ku leedahay aad siisaan taana intaasaan ku dhaafaya waa taariikh ahaan waxaan kaloo ka hadlayaa maamul soomaaliyeed ama shacbi soomaaliyeed oo ay waxyeello u tahay ma jiro cid kastoo soomaaliya waxtar bay u tahay aan ugu horeysiiyo puntland waa degaan walaalaha isku mid ah dowrkii horena puntland wada dhistay markay puntland wada dhisteen iminkana waxay ka dhigan yihiin laba nin oo walaala oo middo weynaadoo reer lahaa middo yaraadoo korada hadda reer kala yeeshay oo laba reer oo walaala ah oo isgarab dega oo hil iyo hooba ka dhexeeya inay noqdaan yay puntlandna ka dhexayso weliba waxaan ra'yi ku daraya dadka maanta khaatimo puntland kaga jira ee baarlaman leh ee wasiira leh ee darashooyin kale leh inay ka mid ahaadaan weligooda puntland oo ay sidaa ugu jiraan khaatimana gobolada mudug iyo nugaal iyo bari oo karkaar iyo bari u wada leh lagaga daro baarlamankeena 15 xubnood oo qoloba gobolbo 5 laga soo diro oo dadku saas ugu dhafnaado oo qolana xagga wax ka dhisato qolana xagga wax kaga jirto ay weligood baa saas u dhisnaadaan oo laba maamulo laba magacna kala leh maal buruq iyo maal iyo maskaxi waa ka dhexeeyaana ay noqdaan taana intaasaan ku daraya
dadka iminka waxoogaa shirarka ka baqan ee madaxda ayaa lagaba maarmaanka ah waxaa qolada shirka wada ka codsanaya intaan lagu dayne wufuud loo diro lasoo codsada inay yimaadaan ood ka qayb galaan howlaha ilaa dada laga maarmayn waa ku badan dhulkeen nin ay ra'yigiisu la noqday ra'yi soo jeediyey oo yidhi aniga sidaa kale ila tahay inaan lagu ceebayne lala doodo lala tashado ta rasmiga ah uu qaato ta rasmiga la isugu yimaado taana intaasaan ku dhaafaya waxaa kaloo muujinaya dowlad goboleedadana waxbaa ka dhexeeya isu qaban karaan dowladda federaalka iyo dowladda khaatmana waxbaa ka dhexeeya dee dowlad goboleed u saxeexi karta dowlad goboleed u saxeexi karta khaatmo ma jirto dowladda federaalka yaa u saxeexi karta oo siin karta wayna siisay waana u saxeexday waana wadaado dhisaysa iyaduna qaybtaasay leedahay qaybaha kalena waa rin kasoo hadloo wixii ka dhexayn jiray hil iyo hooba wuu ka dhexeeya waana istaageerayaan oo way isdhisayaan oo way caawinayaan oo wax kala maarmaa ma jiraan taana intaasaan ku dhaafaya anigu isamada iyo dadka shirka wada qolada gudaha ku jirta uma go-aanku ku dhayi hoole anna waxay ku taliyaan uma kaga mid ahay waxaana lagu dacaynayaa mar haddaan anugu ka maqnahay oo caafimaad darsi uga maqnahay aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadaalka kii hore ee dagaalkiina waa wada joognay oo qaybo waaweyn baan ku lahaa anoo xanuunsanaya kan imikana iyagaa kaga maqnahay mar haddaan ka maqnahay waxay ku taliyaan uma kula mid ahay sidiyaabaha ay u hadleen isamada qaar aan dhegaysanayay waa si wanaagsan oo aada iyo aada u qiimo badan taana intaasaan ku dhaafaya waxaan kelmad ka odhanaya cabdirasaaq khaliif cabdirasaaq waxaan leeyahay in hadal xun lagu yidhaahdo in tuun kale lagu geliyo ma mudnid waxbaan la yaabanahay darajo kaa yar yaad soo dooranaysa anigu waxaan kula talinayaa madaxweynaha soomaaliya iyo wixii lamida doono licib saqiirkanba ka bax kaasaad mudan tahay adigana intaasaan kuleeyahay labana ilowsana waxaad gashay iyo waxaad gudday labana ilowsana nin kasta oo iyo kuwa kale kula mid ee kula socda axmed cilmi cismaan wuxuu ahaa raggii xoreeyey laasaaro doorkuu ka galay annagu ma garanayna isaga iyo puntland madaxdakaaba waxaabaan ka aada u dhibsanayaa inuu jagadiisii baneeyey oo madaxweyne ku-xigeenka ahayd inuu halkiisii taagnaadaan jeclaa laakiin ilaahay kama dhigin ragga meelaha waaweyn ku haboonow ha ku soo noqonin dowlad goboleede hirka weyn wax ka doonta saasaa qoladaana ku leeyahay waana u mahadnaqaya isamada inoo jooga ee reer khaatimo waanu da-weynahay waayo arag dowladeedna waanahay talooyinkeyga in la qaato aada baanu jeclahay wixii ina anfaca waxaan anfacayna haddii la qaadan waayo raalli baan ahaanaya waxayse ila tahay intaa aan idhinidoo dhani waxay ina macnaana ina ila tahay aniga sii dheerayn maaye ciddii wax wanaagsan qabatay ilaa bilowgii aada baan ugu mahadnaqaya ilaahayna waxaa leeyahay idin guuleeyo ciddii sahratay ama si kale waxla muuqatayna dadkaaga soo raac oo ha ka baydhin haddii lagaa batay taana intaasaan ku dhaafaya puntlandna wax kusoo gebagabaynaya waa wax kuu kordhae wax kaa burburay ma jiraan intaa haysataan idinku jirta disoorka idinku jirto ha idinka mid noqoto doorasheedkiina wixiina ha gasho intaana kusoo darsada maamulka la dhismaya aniga wax jeclay in layga qaato weliba qolada maamulka dhisaysaa ha fududaysanina ragga aan leeyahay gobolada laga soo daro saddexda kursi ee madaxweynaha ku-xigeenka iyo ra-iisul baarlamaankana waa in waa in la qaybsadaa oo ayan labana qole iskaga daba tegin saddexduna qole iskaga daba tegin waa in la qaybsadaa oo dadkaa isugu yimi loo qaybiya taasna intaasaan ku dhaafaya soomaaliya ilaahay waxaa kaaga baryaya inaad qoriga dhigto oo nabad ku shaqayso oo meeshii colaadi ka jirtaba
nabad lagaga tashado ciddii waa ta dhinaca Soomaali galbeed ama Somaliland waxaan leeyahay horena waa uga hadlay warbeeluhuna ha dhibteen oo ha isdhaarsadeen maamuladuna maamulnimo ha wada hadleen oo dadka shacbigii intuu nabdo oo isdhaarsado ha wada dego oo ceelka ha wada cabo oo cawska ha wada daaqo oo xukunkoodu baabulo beelo sidaa ugu qaybsanaado saasa taana leeyahay colaadiina ma wado nabad ha loo gutado nabad ha lagu tartamo qoladii nabadda ku horeysa ku degdegta nabadda ridaheeda hore furta yaynu abaal gaara u hayn doonaa hala nabdo nabad ha lagu qaato sidaa ha laysu dhaarsado beeluhu ha isdhaarsadeen kuwa hawdka degan iyo kuwa cayn degan iyo kuwa ceerigaamo degan ha la isdhaarsado beelo shacbiga ha isu dhaarsada maamuladuna maamulla u wada hadleen waxaa la shubayo haddii qolo sadbursiya rabto nabaddu ma dhacdo war ceerigaamo iyadan xabadaba ka dhicin ha laysugu yimaado qayb waliba dhinaceeda ha maamulato ha layska warayo sida gaalkacyo in laga dhigo yaraad iyo aad u adkaynaya ilana quban waxba yar hadalka wadine kulligeeba nabadaa qaadano sidii loo nabdi lahaana cid waliba ha ka shaqayso ciddii nabadda diida ilaahay baa kala xisaabtami ciddii nabadda diidan ilaahay baa kala xisaabtami waxyaabaha maxaabiista iyo arrimaha la hadlayo waa in nabadi ka horeysa si buuxda inta loo nabdo markaa yaa maxaabiistana laga hadli karaa iyadaa nabadi dhicin maxaabiist lagama hadli karaba salaadiinta daarood iyo salaadiinta hawiye inay u qaybiyaan guddi salaadiina oo heshiisiisa maamulada federaalka iyo dowlad goboleedada Puntland iyo Jubbaland taasi waa soo jeedin oo waliba kuwa daarooda boqor burhaan ha hogaamiyo kuwa haweeney imaamka amgar ha hogaamiyo iyaga hadday cid kale oo qaybsanayaan iyaga yaqaan taa qodobkaasna taasaan ku darayaa meel kasta la joogaba haddii la qabto marjaca waa uu dhaqanka marka haddii siyaasadda qabato waa in dhaqanku heshiisiiya si aan dadku u kala lumin oo u xuloomin qodobka kale aan doonaya in la ilaaliyo waxa weeye dhalinyarada TikTok iyo moobilka iyo waxyaabaha ka caytamaysa ee madaxda caayaysa ama dhaqan ha caayeen ama ha caayeen siyaasiyiinta waa in wax laga qabtaa oo qofkii caytama maamuladu dambi ku qaadaan oo sharciga qaabilsiiyaan oo edab loo yeelaa dadka aflagaan doonaya madaxda dhaqanka iyo taa siyaasadda macaadaya intaasaan kaga baxayaa waxaan leedahay Soomaaliyay ilaahay ha kaa qaado cudurrada dhibta ilaahay ha kaa saaro ilaahay colaadda nabad ha inoogu bedelo ilaahay cudurka caafimaad ha inoogu bedelo ilaahay abaarta barwaaqo ha inoogu bedelo ilaahay qalbigeena ha isu soo wanaajiyo ilaahay qowl iyo ficil iyo qalbi intaba ha inoo wanaajiyo ilaahay walaalnimadii iyo dowladnimadii iyo kala dambayntii iyo isjacaylkii ilaahay ha inagu soo celiyo intaasaan kusoo gaabinaya waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu